بسم الله الحمد لله جبلان waxaa ka socday toddobaadyadii aan soo dhaafnay ilaa hadda aan joogno howlgallo ballaaran oo horey loogu diyaar garoobay howlgalladaas oo ay fulinayeen cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka mid yihiin ciidanka danab iyo qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland wuxuu leeyahay dowlad daraawiish aad u xoog badan tirana badan hub fiicanna haysata runtii rool weyn ka ciyaartay dagaalkii socday howlgalkaas wuxuu ka bilowday laga bilaabo Kismaayo Buula Guduud deegaanka la yiraahdo Kismaayo u jirta 35 kilomitir wuxuuna u fiday jihada Dhasheegwaamo iyo degmada Afmadow howlgalkaas waxaa lagu qabtay deegaan fara badan oo ay kamid tahay Janaac Cabdalle Guba Kibir Sacamoja Anjel Cabdulla Biroole Cabdulla Dhoore Qombi Sooya Handarof waa deegaano ay gaalo mashaariic ay deganaan jireen hadda ka hor ay waqtigii dawladda dhex jirtay deegaanadaas oo dhan waa laga xoreeyay howlgalkaasna waxaa hogaaminaya madaxweynaha dowlad goboleedka hadda saraakiishii howlgalkaas hogaaminaysa waxaa kamid ah wasiirka amniga ee dowlad goboleedka oo horey u ahaan jiray taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed waqtiyadii 2009 2010 oo magaciisa la yiraahdo Sareeyagaas Yuusuf Xuseen Cusmaan Dhuumaal iyo taliyihii qaybta 43aad oo asoo hadda bartaas ku sugan Afmadow oo hogaaminta qaybtiisa ka wata oo magaciisa la yiraahdo Cali Maxamed Maxamuud Bagmadow iyo taliyaha daraawiishta dowlad goboleedka General Ismaaciil Saxardiid oo marna taliyaha qaybta 43aad ka noqday dowlad goboleedkaas Jubbaland howlgalkaas si xoog badan iyo jihadaas uga socdaa maantadan al joogno dhulka la yiraahdo Dhasheegwaamo waxaa ku soo fataha dhulka biyoodka dhulka deegaankaas ka dhaco dhan iyo tugag badan baa soo yimaada waa dhul kayn oo xiran faltankiina halkaas ka socdaayo cadawga halkaas ay galeen markii deegaanadaas laga soo qabsaday ciidamada daraawiishta iyo ciidanka danab baana hadda ku daba jira dagaalkiina si xoog buu u socdaa dhanka kale Jubbaland waxa weeyaan waa deegaan aad u ballaaran 3 gobol ka kooban dhulka deegaanka la yiraahdo Joore dhanka waxa la yiraahdaa Waamo Afmadow iyo deegaankan dhanka Joore waxa laga xukumaa degmada Badhaadhe waxa isku diyaariyay degmada Afmadow deegaanka Kulbiyow iyo Kismaayo ciidankii daraawiishta oo loogu talagalay inay qabtaan deegaankaas Joore ay ka saaraan cadawga ku jira ayagoo kaashanaya ciidamada ATMIS oo degan Ras Kamboni iyo Kudha iyo Buurgaabo ciidamadaasoo dhawaan way dhaqaaqi doonaan dhulkaas dhul aad u dheer aad u tiro badan waxaana laga xukumaa degmada Badhaadhe waxaana kamid ah Xaliim Wadajir Xaliim Cadeey Bulaxaaji deegaano fara badan oo Karsay Kuusa iyo Santaara iyo deegaano fara badan oo ah tuulooyin iyo degmooyin waaweyn iyo deegaamo dadku degan yahay waro iyo beero iyo lehwey howlgalkaas hadda halkaasna uu ku wajahan yahay waqtiga la bilaabayo waa arrimo sir ah laakiin ciidanka diyaar garow buuxa oo dhameystiran buu galay dhanka Waamana saa xoog badan buu uga socdaa howlgalka guud ahaan waxaa laga hogaamin doonaa barta hogaaminta noqon doonta degmada Afmadow waxaana fadhiisan doona madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan oo noqon doona hogaamiyaha dagaalka ee deegaankaas dhammaan cutubyada taliyayaasha kale waa ama han noqoto taliyaha daraawiishta taliyaha qaybta 43aad xoogga dalka Soomaaliyeed iyo madaxda kale amniga dowlad goboleedkuna howlgalkaas dhinacyadiisa aadayaan galmudug shalay jab xoogna la gaarsiiyay qawaariidta deegaano badan waa laga wareegay deegaano maamulayeen muddo waa ciidankii ku sii socdaan ayagu maxaa warbixin ugu dambeeyay halka shalayto dagaal baa ka dhacay ciidanku asagoo sii socda howlgalka ku sii socda ayuu halkaas wuxuu kala kulmay ciidamo cadawga ah oo miina dhigaya oo ku dhigaya miinada deegaanka la yiraahdo Qaycad miinadii intay shakiyeen miinadana deganaansho u baahan tahay ay qaraxday saddexdoodna dhimanaysay waa ku dhimatay ciidankii waxay soo gaareen unuga ilaalinayay oo meedkii rogrogay oo raba inuu meedkii qaado 10kii meedkii gacanta ku haysan meesha ku dileen waxaa lagala wareegay 7 qora AK iyo 2 qora BKM 10kaas qori yaa laga qaaday dabcan waxay ku sheegaysaa saddexda miinada dhigaysa ayagu hubinaysa wadana miinada gacanta ku hayeen 10kii ilaalada wahaydna meesha lagu dilay hubkaasna waa laga qaatay waxa isla toddobaadkaas gudihiisa laga qabtay deegaankaas magaalada meesha la yiraahdo Doonyaale cimaamad
deegaanka la yiraahdo Bacadweyn waa tuulooyin badan oo deegaankaas mudug ku yaala oo kulligood laga ka kala tirsan degmada Hobyo iyo degmada Xardheer ay kala tirsan yihiin waa deegaankii biyaha iyo nolosha ku haystay wixii hadda ka dambeeyo gobolka mudug meel dambe biyo iyo deegaan ka helayaan ma jirto ciidankuna waa ku sii socdaa waxaana halkaas ka howlgalaya ciidamada danab iyo qaybta 12aad cutubiyadii kale gorgorna waajibaad kale iyo jaha kale ayagana la siiyay shacabka hubaysan iyo daraawiishta dowlad goboleedkuna si xoog badan bay halkaas uga faltamayaan oo far badan bay la tageen iyo ciidan fara badan aad bay u caawinayaan ciidanka deegaanka qiyacda hadii aad gacanta ku hayso ciidanka gacanta ku hayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gacanta ku haya qaybta 12 taliyaha qaybta saaka igala hadlayay gacantay ku hayaan waana sugan tahay